السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن كسو دوادا درس عصب أو كمد دروستي كبحيسي دوكسي24.com. بإذن الله الكريم درسيغان مانتا وحان قادنينا مد كمد دروستي قرحينتا قرآنكا اللو يخاني تجويد القرآن وحان سوق قادني هردع وسابسان أحكام النون الساكنة والتنوين أحكامتا نون تريبن يتنوينتا sida loo akhrinayo quraanka dhexdiisa. markaas kadib waxaan qaadanaynaa afartii xukun ee dhahnay waxay leedahay nuunta reeban iyo tanwiintu afar xukun bay yeelanayaan oo ugu horeeyo idhaarka. marka maanta waxaan qaadanaynaa xukunka idhaarka insha Allah ta'ala. al-idhaar idhaarku waa xukun kamid ah afarta xukun ay leedahay نون تربان إيه تنوينتو إليهين. الإظهار كمحوية الإظهار وحويان تعريف الإظهاري قيحيتانك هي تعريف كإظهار كوحويان لغة حق لغة أهان هي أفهان محلو لتشيدا الإبانة والإيضاح وعدين إنسفي على الموتشي تاس أي اللو يقانا إظهار لغة أهان وحويان أظهر يظهر إظهارا أظهر وموجية يظهر وموجنيا إظهارا موجن موجنيا الإظهار وموجن. اصطلاحا سيدا قارك علماء التجويد ويقانا مارتي أودجان وحال يرادا لو يقانا إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة كاملة. إخراج الحرف حرف كأول صوصارو من مخرجه meesha uu ka soo baxa makhrajkiisa godka uu ka soo baxa meesha ka soo baxaya laga soo saaraya xarafka min ghayri gunnatin kaamila iyada oo gunno dhammaystiran inay socdo. gunnaduna meesheedan ugu tegaynaa iyo sidaan horeba u soo sheegnay waxa weeyaan gunnadu waa sawtun yakhruju min al-khayshum waa cod ka soo baxa sanka ka soo baxa sandullaha ama sanka ka soo baxa codkaas oo bimiqdaari xarakatayni yani قدر لبا حركة سعونية. مركا قلنا إن شاء الله تعالى ماشي نكون شرحينا. مركا إظهارك وحلي هذا وحرفك أول صوصاره إخراج الحرف من مخرجه حرفك أول صوصاره مخرج كيسا حروفته وحيلي دمان مخارج بلي حرف كستميل بك صوبها حرف بعرب كصوبها مدبا دون تكصوبها مدبا كصوبها مارتي الكا كصوبحيا مدبا كصوبحيا مركا مخارجته نوعاسا midbaa khayshumka ka soo baxaya. marka makharijta xarafka oo laga soo saara makhrajkiisa min ghayri gunnatin iyadoo gunna wadanin kaamilatin oo dhammaystiran. marka idhaarku luqad ahaan waa muujin istilaaxaanna waxaan dhahnay waa xarafka oo laga soo saaro makhrajkiisa meeshuu ka soo baxayay booskiisa ka soo baxa min ghayri gunnatin kaamila soo bilaa gunna. حروف الإظهار 6 حرفها إظهارك واللح سيدا عن قيبتي هورا عن عدرسي هورا كسو قادني وحويان لح إظهارك وحوليها لح حرف أيوليها وهي لحظة حرف وحويان الهمزة والهاء الهمزة والهاء العين والحاء عين يحاذا والغين والخاء يا غينك يا خاء. إذن لحظة حرف أيوليها إظهارك وكونا الهمزة همزة يهأدا عينتا يحأدا غينك يخاضا. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لحظة حرف أيا وحاء كسو آذية إظهارك لحظة حرف أيوليه لحظة حرف ولماذا تجويدكو بحويان وانو إمان دونا لحظة حرف هدي إذا بدعان نون ريبا إيو تنوين تنوينتنا وان سو شرحنay oo ah laba kordhig fadxateen iyo kasrateen iyo dhammateen labadan maaratay nuunta reeban iyo tanwiintaas haday daba dhacaan lixdan xaraf waa la muujinayaa nuunta waa la muujinayaa oo waa maaratay si fiican ayaa loo muujinayaa. lixdan xaraf waxay culimada tajwiidku ku soo koobaan si loo xasuusto waxay u sameeyeen tix gabay ah oo lagu xasuusanayo. marka xaraf kasta oo ugu horeeya beedkan shicirka
midabka cad aan u yeelay ayaa waxa weeyaan yaa loogu talagalay markaa lagu soo ururiyey akhii haaka cilman xaazuhu غayru khasirin akhii haaka cilman xaazuhu غayru khasirin akhii hamzadaa loo jeedaa haaka ha'da loo jeedaa cilman caynkaa loo jeedaa xaazuhu xa'da loo jeedaa غayru khasirin qaynkaa loo jeedaa khasirna kha'da loo jeedaa macnihiisu muxuu yahay beedkan akhii walaalow haaka hoo cilman cilmi hoo xaazuhu qofkii baratay ee kooba غayru khasirin waa mid aan khasaarayn cilmi aan lagu khasaarayn hoo walaalow ayay ka dhigan tahay waxaa jira beyd kale oo dhahaya isaguna in gaaba cannii xabiibii hammanii khabaru in hamzadaa loo jeedaa midabka cas aan u yeelay gaaba qaynkaa loo jeedaa cannii caynkaa loo jeedaa xabiibii xa'da loo jeedaa hammanii ha'da loo jeedaa khabaruhu kha'da loo jeedaa in gaaba cannii xabiibii hammanii khabaruhu in gaaba cannii haddii uu iga maqnaado cannii xaggayga hadduu iga maqnaado xabiibii midkii aan jeclaa hammanii waxaa murjinaya khabaruhu warkiisa ayaa inaan doono oo maaragtay aan ka yacni maaragtay ka walwalaya hammanii khabaruhu khabarkiisa ayaa maaragtay iwalwalgelinaya aan ka warwaraya marka waxaan dhahnay 6 xaraf ayuu leeyahay idhaarku 6 xarafna waxaa weeyaan alhamzatu walhaa والعين والحاء والغين والخاء حروف الإظهار 6 iyadoo markaa tusaalooyin ah ayaan isticmaalaynaa oo insha Allah taala meeshan u soo bandhigaynaa 6 xaraf oo ku jira maaragtay kelmado ku jira ayaan insha Allah akhriyeynaa yanawna waa nuun reeban xukunkeeda haddii lagu weydiiyo maxaad haysaa yanawna xukunkeedu waa idhaar sababtaa nuun reeban oo nuuntaa reeban ayaa waxaa ka dambaysa hamsa yanawna marka waxaa loo akhrinayaa yanawna aadaa loo muujinayaa nuun reeban oo haa ka dambayso waa idhaar yanhawna iyada oo caynkii ah nuun reeban oo cayn ka dambayso waa idhaar xukunkeedu waa idhaar marka nuun reeban oo cayn ka dambeeyo anhamta nuun reebanoo xaa ka dambayso tanxituuna nuun reeban oo qayn ka dambeeyo waa idhaar waxaa la dhahayaa fasayunqiduuna cafwan halkaa damo waaye qalad baa meesha ku jira ku baraaruga yunqiduuna damo weeyaan fasayunqiduuna damo weeyaan halkaasi damo weeyaan waxa way fadxa saaran waa qalad markaa waxaad u fahmaysaan inay tahay damo fasayunqiduuna walmunkhaniqatu nuun reeban oo iqaa ka dambayso walmunkhaniqatu markaa nuun reeban oo iqaa ka dambayso xukunkeedu waxaa weeyaan idhaar muujinaya iyadoo tanwiin ah ayaan insha Allah taala qaadan doonaa marka 6 nuunta reeban iyo tanwiinta haddii ay ka dambeeyaan kelmadihii xarfihii 6 ahaa waxa weeyaan xukunkeedu waxaan dhahnaa waa idhaar marka qaybtii idgaamkan insha Allah yani tanwiinta ka dambeeyay